deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa wali waxa ka jirta xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland marka laga yimaado dagaalkii shalay qasaaraha sababay ee labada ciidan ku dhaxmaray halkaasi saaka ilaa duhuradii oo aan ku sugnaa furinta waxa ii muuqatay saansaan dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ay labada ciidanba sameynayeen iyadoo mararka qaar la isku turtuurayay hoob culculus balse ma jirin dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamadaasi gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo haatan kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee ku sugan aaga dagaalka ayaa saxaafadda u sheegay in ay guulo dhankooda ka gaareen dagaalkii shalay ee salaasada isla markaana ay gubeen sida uu hadalka u dhigay taliskii guud ee ciidamada Somaliland waxa uu sheegay Colonel Cumar Faraweyne in saraakiil sare ay dileen ciidamada Puntland ciidamada geesiyaasha magabadayaasha ee dawladda Puntland oo shalay dagaal galay aad iyo aad baan u salaamayaa salaan guud waxaan kale u sheegayaa shacabka reer Puntland waxa la yiri wararka been abuurkaayo saxaafadu la wareegayso Somaliland waxba aan cid shabina iyo dhulbaan inay soo ka jirin anu hadda meesha ay kala hadla u jeedaano waa to karaq labarkeedii weey dagaal baa ka dhacay khasaara waa laba dhinac waa jira laakiin Soomaalidu waxay tahay harubka tabi waxaanu ka haynaa gaadiid dagaal waa aragteen baamanay beebayaal leh suuyele teedhisaban leh anagu intaan arkay hadda jiida dhexe taalaay 19 gaari weey waxaanu haynaa baanduulihii ciidanka waxaana kaloo ku dhimatay 9 sargaal oo ay ka tacsiyeynayeen xalay idaaca Facebookyada iyo baa ku dhimatay waxaanu gubnay taliskooda daadiga ardaadaqaha kana ka baxsan insha Allah ta'ala saacadaha soo socdaan hadii Allah idmo dadka la soo qalday oo lagu soo qalday go'aanoogaadka beenbeenta waxa ayaan waa ka dhigi doonaa hadii Allah idmo wax dhibaato ma jiraan meela kiisha aad leyseen oo sagaalka ah ma taliska aad gubteen bay ku dhinteen dagaalkana waa ku dhinteen taliska u dhinteen taliyihii ciidanka watana waa qabano isbaa garow yaala waa ishina macalina waa soo aragta maxaabiisna waanu haynaa insha Allah ta'ala wixii faahfaahin dib aanu ka sheegi doonaa dagaalkuna ciyaartu waa bilow weey ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland ayuu dagaal ku dhaxmaray maalintii salaasada oo ay ku beegneed 15 bishan deegaano ka tirsan gobolka Sool waxaana dagaalkaasi uu sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo labada dhinac soo kala gaaray hogaamiyaasha ciidamada labada dhinac ayaa waxa ay warbaahinta la wadaageen in dagaalka ay labadooduba guulo ka gaareen iyadoo midba midka kale uu ku eedeeyay in dagaalkaasi uu sababtiisa lahaa halkani waa aaga ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Puntland Maxamed Soofaysan SBC